bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan daawadayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barteena YouTube-ka oo xiliyadan oo kala inooga barteen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin gabadhii saddexaad oo ardayad ahayd 14 sano jir ahaydna lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan dawladda Talyaaniga oo ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya afduubka loo geysto caruurta yaryar iyo baqdinta waalidiinta soo food saaray oo ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wiil dhalinyaro ah oo magaalada lagu dilay iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaa daawan doontaan hadduu ee barnaamij ka noqdo balse aan ku hormarnay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in faahfaahinna dheeri ah laga helay qarax ka dhacay agagaarka argada degmada Dayniile ee gobolka Banaadir qaraxaasi ayaa waxa wararku ay sheegayaan in lala eegtay ciidamo u dhashay dawladda Talyaaniga kuwaas oo ka soo baxayay wasaaradda gaashaandhigga laguna qarxiyay agagaarka argada degmada Dayniile ee gobolka Banaadir goobjoogayaal ayaa sheegay in gaari noocan noohada loo yaqaan lagu dhifto mid ka mid ah gawaarida kolonyada dalka Talyaaniga halkaas oo uu ku rogmaday mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Talyaaniga ee kolonyada iyo kuwa Soomaali ah ayaa isku gadaamay goobta qarax uu ka dhacay sargaal ka mid ah maamulka degmada Dayniile ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qasaaruhu ka dhashay goobta laakiin uu ku kooban yahay ciidanka dawladda Talyaaniga ee halkaasi mariyay sargaalkan waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin rasmi ah ka bixiyo qasaaraha qaraxa ismiidaaminta ah ee ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir shalay gelinkii dambe waxaa degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir lagu dilay Caasha Cabdi Sanay oo 14 sano jir ahayd kaasoo dhiganaysa dugsiga dhexe iyo sare ee Al-Fajri waana gabadhii saddexaad oo ardayad ah oo magaalada Muqdisho lagu dilay waxaa dilkeeda geystay rag wata mooto Falcon loo yaqaan kuwaas oo la sheegay inay doonayeen inay ka dhacaan telefoonkeeda gacanta ay ku wadatay 22 Sebtembar waxaa xarunta jaamacadda Soomaaliya ee xaafadda Baro wax lagu dilay Aamina Xuseen Xasan oo rag hubaysan fasalkeeda inta ay ugu galeen ay goobta ay ku toogteen 18 Sebtembar ayaa sidoo kale la dilay Deeqa Daahir Caga Dahab oo gaariga dugsiga hoyga xamar la socotay kaas oo rasaas uu ku furay mid ka mid ah askarta ciidanka dawladda hooyada dhashay gabadha yar 14 sano jirka ee shalay lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixinaysa sida ay wax u dhaceen magacaygu fartuun oo kursuub yaallah ay gabadha la dilay bal magaceed Caasha Cabdi Sanay yaallah ay halkee lagu dilay Rabadaan lagu dilay hotel Rabadaan agaarkiisa ay yaa dilay laga soo deeyay intayna guriga soo gaarin annaga uma dheer guriga iskoolka iyo hotelka iyo isku maba dheero iyo guriga intuu ka dhaxlaha lagu dilay marka waa masiibada magaalada wareegayso iyo umada magaalada lagu dilay gabarteeda kamid tahay marka qof dambi galama jire waxa waaye qof kasta oo malafmeedka maalmo arkaas ku soo garaaca ay yaa dilay marka والله ولا ألقيه ما خانه واحد لي ما خانه حدان إلهي كعب صدق أنا دلبابيني لبني موطة ولا طاعون كل جبادة خفصلي كل موبايل ما يكون دقيق ما خانه وتحل لي صلاة الظهر لو جريهات تذكر إليهن بورصدي كل دقيق لكن وأن حبضي وأن كل فتانه وحي ونغملقه وأنت بستوله لو قلت على أركان حبي كل دقيق qaabka hadda ay xabada ugu dhacdayna inuu hal xabado aanka xaqiisa aan ka gashay dhinaca kale uga baxday oo madaxaas u disho maahna qof caadi loo dilay ma ahin marka waa run faltuugu oo ku dhimatay waqtigii oo dhamaada ajishay dhamaatay faan ma qajir ay ahayd 14 sano waayahay ma dhaawac baa soo gaaray u geeriyootay mise isla goobta ay u dhimatay hadii xogta heesaan ma goobta kuma dhimano anta la soo caalayda gabadha dhaawac aha inta taalo waana la soo qaaday marka ana bakaaran joogay digsiir hala keenan isbitaalka markii la gashay intaana gacan la saaray nafta ka baxday taasi waxay ahayd hooyada dhashay Caasha Cabdi Sanay oo 14 sano jir ahayd oo lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir dhinaca kalena magaalada Muqdisho falalka afduubka dhaca iyo dilka ayaa ku soo badanaya cabsida laga qabo afduubka caruurta loo geysta ayaa aad uga taagan degmo ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Warta Nabadda iyo degmooyinka ku xeeran waatan mid kamid ah hooyooyinka degmadaasi ku dhaqan oo ka sheekeynaysa wiilkeeda oo 12 sano jir ah oo motobajaaj lagu afduubtay balse markii dambe ciidanka dawladda ay ka soo dhiciyeen أنا ويلكيga saafay waa sidaan ku sheegay asoo masaajid salaad subax ka soo baxay waa la afduubtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu nooga soo dhigay hada Allah ma inoo Ilaahay baa nooga soo dhigay wax anagu aan ogeyn iyo wax afduubkiisa aan warkayna aysan jirin waqti dhanba la soo wacay telefonka daa qabtay asaga iga qabtay oo waa la afduubay
halkaas marka wuxuu yiri niman ay afduubay laana ka qaaday teleefankii waxay tiri maamo cunugaada waa la soo afduubay haddana annaga hayno iskool boolisiyo waaye wax dhibaato ma jirto halkaas ugu imow adigoo tartiibsan oo degan oo iswaalin tartiib ugu imow cunugaada ku caafimaad qaba waan gartay marka imise saabay ahayd marka la afduubtay yaana afduubtay wiilkaada wax afduubtay war uma haayo anagu lama aanan socon salaad masaajid salaadu aaday waqtigii salaada masaajidka laga soo baxay oo guriga soo aaday masaajidka uu ka soo baxay cunuga masaajidka ka soo laga qabsaday masaajidka meesha cunuga laga qabsaday 10 tilaabo iskuma jiraan hadda markaasna meesha wuxuu yiri wax dad ma maraynin marka masaajidka ka soo baxay wuxuu yiri caloosha iyo xanuuntay musqul masaajidka inaan galaan rabay isku lagu jiraan arkay guriga ka gaarsiiyaan istiri wiilga wuxuu yiri ayay cabaaso banan baa meesha hortaada joogo beenta aan iriyo horaan soo dhaqaaqay isla markiiba wuxuu afka la qabtay dab afka iyo qoorta nin baa ay qabtay labada lugood nin baa ay qabtay waa ila ordeen meel luuq ay geeyeen afka iga xireen maray afka iga galshay sharooti iga xireen labada lugood labada gacmood la iga xiray biltaaja la igu riday daahiyale niman maaskaraatay hayno anigu wajigooda ma aanan arag ma garatay waan gartay marka imise saac kadib ayay ku soo dagashay inaad wiilkaada dib u hesho wiilkayga ariga qof naxsanaan ahay saacad ma aanan fiirinin balse waqtiga ciyaalka oo bareeda loo soo deeyay iskoolka ciyaarkeeda markaas ma ciyaarta dugsiga laga soo deeyay saacad ma aanan fiirin qiyaasta 3 saac bar meelahaas ay ahayd ma fiirin ani saacad ma fiirin qof naxsanaan ahay baadi ka maqan tahay waayahay markii lagu soo wacay kadib marka maxaad samaysay maxaad la kulantay markii la soo wacay oo halkaan ka dhaqaaqnay bajaajan qaadanay meeshii cunugi joogay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dad baa naga horteen la sii wacay teleefankii gabadhii aan dad badan siiyay dad baa nooga hormaray dadkii nooga hormaray waa loo diiday waxaa la yiri hooyadiisa aan la hadalnay ayadoo dhimaanna ma siinayna qof kale bas meeshii baan tagnay wiilkaygu markaan uu arkay uu ooyay waa ugu soo orday alxamdulillah shukran bil caalamiin asoo nabad qabo ilaahay ii soo sahlay allihii asoo nabad qabo ii soo sahlay gacan dad khaaimiina gacantooda intuu galay allah subxaanahu wa ta'aala uu iga soo dhigay iskool boolisiyo oo og garanaysaan meesha ku yaala la geeyay inta calkamiin laga qaaday allah subxaanahu wa ta'aala uu ka soo dhigay salaada subaxeed cunug la qaaday 3 saac iyo bar intaas magaalada xamar meesha raba laga geli karay intaas la wareejinayay allihii iga soo dhigay mahadaas uga haya guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho waa naga inta hadii ay ku sheegan wararkeena dib ayaad u dhageysan kartaa subscribe saar si aad u hesho wararka kale ee xiga waxaad la wadaagi kartaa asxaabtaada qaybta hoosna aragtidaada ku dhiibo warbixinta ku soo jiidatay mahadsanid